booliska South Sudan iyo kuwa caalamiga Interpol ayaa rag ay ka soo qabteen magaalada Juba oo lagu eedeeyay tahriibinta dadka maanta magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dajiyay. dhinaca kalena hay'adda UNHCR ayaa sheegtay inay korodhay tirada dhimashada qaxoontiga ka soo tallaabaya Liibiya ee imanaya Talyaaniga, iyadoo kuwa dadka tahriibiyana ay sii noqonayaan imika qaar arxanlaawayaal ah oo dadka garaaca isla markaasina ka dhaca waxoogaga ay sitaan. koox BBC-da ka tirsan ayaa toddobaadyo saaraa markaba ay leeyihiin hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn. Cismaan Cabdi Xasan ayaa inoo haya. dalal badan, wajiyo badan oo hal ku midaysan. dhammaan waxay ka soo badbaadeen halka ugu dhimashada badan muhaajiriinta. dadkan waxaa xeebta Liibiya meel ka baxsan ka soo qaaday marka badbaado. inta badan waxay soo mareen Liibiya si ay u soo gaaraan xeebta iyo doonyaha kuwa dadka tahriibiya. gabadhan Nigeria ayay ka timid, waxay soo martay saxaraha si ay Liibiya u soo gaarto. waxayna la kulantay afduub iyo xarig. xabsigaas dadka waxa la garaacaa ilaa iyo intay naftu ka baxayso. dadka danka ma laha. 3 maalmood ayaad iskaga jiraysaa cunto la'aan ka hor intaanay kugu soo noqon. habeenkii ayay imanayaan, waxaanay dooranayaan gabadhii ay doonaan, kadibna ay gaxaysanayaan. waxay noola dhaqmaan sida xawayaankoo kale. maalin kasta dad cusub ayaa ka yimaada Senegal iyo Bangladesh. meel ayaa lagu xareeyaa ilaa tirada ay ka gaarayso 150 ama 160. kadib doon alwaax ah bay ku saarayaan oo liicaysa. mana garan kartid inaad gaari doonto iyo in kale. hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR waxay sheegtay inaysan doonayn oo keliya caawin, balse ay lacag u baahan yihiin. 421 milyan oo dollar ayaa dadka looga joojin karaa safarka Yurub. waxayna sheegeen inay taasi kor u qaadayso xaalka Liibiya. waa in loo oggolaadaa qaxootiga saxda ah in ay magangelyo codsadaan iyagoo aan noloshooda khatar gelin. waana in tallaabooyin adag laga qaadaa safrinta sharci darrada ah ee dadka, taasi oo galaafatay sanadkan nolosha in ka badan 2,000 oo ruux. faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaali adigoo ka gelaya moobilkaaga.